إذا dadka in loo digaa cilmi tiro badan uma baahna waxay u baahan tahay qofku inuu mas'uuliyadda qaado nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam markuu diinta dadka u sheegay abubakar sidiiq baa rumeeyey abubakar isma oo dhan nebigaa joogay adigu waxba ha sheegin bale culamada taariikhda qaar ka mida waxay tilmaamaan casharatu lmubashiriin inta u badan inuu abubakar islaamiyey طلحة يا أبو عبيدة يا عثمان يا الرقاسي ميزان كأبي بكر بيكو قرين أبي بكر با أنتو إسلاميين نبي قو كان عليه الصلاة والسلام إذن حلك الدين تو حسارين قف كستو مسلمة وحانو كسارين دين تن إلهي وقاضو ودتك قارسيو نبي الله محمد وآخر الرسول نبي كدن بيي الرسول كدن بيي لما صوت ريو إساقا وقدن بيي انتو النبي محمد قاري دوني ده جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان كو صادري وهدي دادور دن الله صادري سنان جزيرة العرب كبحين سيدابا يكون عيسى وهيكون عيسى قف كستو مسؤولة بمسؤولي قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك markii xajkii nabigu soo xajay calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la hadlayay wuxuu ku yidhi balliquu cannii walow aaya war dadka iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee baa ilaahay ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii walow aaya qur-aan imisaa qaybsantiin ninka ugu yara faatixada qaybsani 7 aayadood buu hayaa qofka ugu yar haddaad daaci muslima tahay dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam adaa wakiil ka ah haddii isaga la yidhi nadiirun lilcaalamiin baa tahay adigu ku soo gaadhsiiyo xilka ku saaray adna intaad gaadhaysa inaad gaadhsiisaabaa korkaaga saaran ayuha alaxibba laysma yidhaahdo armaa laga aqbali waayaa ninkani 3 rasuul baa la diiday isma odhanin war nimanka 3 rasuul diiday dee adigaba ku yeeli maayaan aduu meel 3 caalim oo muslim rasuulka kaale 3 sheekh oo culamo aad ka dambaysaa meel nimay la hadleen ama qoom ay la hadleen oo ay diideen adnama u soo xaydxaydan lahayd oo ma is odhan lahayd wax u sheeg mise waxaad odhan lahayd culamadii bay beeniyeen ee kuwa culamada beeniyey maxay sheegayaan qof walba meel baa kelmadiisu ka socotaa ninka waayeelka ah ninka taajirka ah ninka sultaanka ah nin walba dad baa ka dambeeyo ereygiisa qiimeeya وهدو كو يراهدا سيدا هلا يلاني كو سو علينا مصالح اي كو قبان درادود إلهينا القرآن كو حكوت ليهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلهي عدنا ما تكليفنين وحكو سيي مويانه آخر إلهي وحكو ويدين يا وحكو سيي محات سلام كو قبط هدا تاجر هاي محات كو قبط تجارتا دو حشي كريسي حولها قاد وحكو قبان كريسي هدا سلطان هيدي هدا عاقل هيد محات كو قبط هدا افتهن يقبا ياها محات كو قبطي إلهي الدقم كي يفريد كآخرة حتى يسكسي الله حسابي مايو نفو البوحي لسيا لغو حسابيا قفوا لبدين تنمركا مسؤول بكيهي ساوغيد دور السببات بوين الدين تو حنبارتا كو وين دو حنبارتا إلهي حجدي سين الدتك كو اكتو رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دتك الله ما شيغا او قرا الراعي مايان ييكو الراعي حجده كدلوك ويا النبي عليه الصلاة والسلام حتى الماما يا قيامها الرسل يا النبي ايمن دونه قيامها النبي با ايمن دونه ان عيد بالله سعون مد با ايمن دونه قف لا سocdo mid ba iman doona laba la socdo hadda waa nabiyo ma dacwadoodu mafaashil bay ahayd maya qoom dhaga adag ba ku beegmay laakiin waajibkii ahaa aakhira inaanay cudurdaar helin buu ku oogay
إلهي سبحانه وتعالى وحلي الرسوش إيا منذرين تأيا وحنو صادر لألا يكون على إناني هلين آخره عذر دار إناني هلين عذر دار كادق على غير بين تفيده شغل هذا ما هي ندتك إلهي الرعاني إننا الرعين إلهي بتاكو شغله أدوين تبين مسو عدي سد دتك إن إلهي الرعان بعد قد شاده صارا سيدا أوجد أيا قولدي اللي يري لما تعذون قوما الله مهلكهم ما دوانني سندول إلهي سبحانه وتعالى هلاقيه nimankii sabtida ugaadhsaday ee la yidhi sabtida ha ugaadhsanina bulshadii saddex qaybood bay noqotay qayb ugaadhsatay farsamo iyo xeelada intay samaysay iyo qayb tidhi war ka daaya iyo qayb iska aamustay qaybta iska aamustay in badan qur-aanku wax kama sheegin laakiin wuxuu sheegay warkoodii ahaayo keliya lima taciduuna qowman ilaahu muhlikum waa nimankani diinta waa ogyihiin in laga mamnuucayna waa ogyihiin maxaa u waaninaysaan kuwan ilaahay baa halaagaya way dhaga xidhaane maxay ku yidhaahdeen qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxaanu u waaninaynaa laba shay macdiratan ilaa rabbikum aakhiro inaannu annagu xujadii ku oognay inaannu la nimaadno aan aakhiro annaga naloo qabsan dadkaa la nooshiin hadday yidhaahdaan diintuna may soo gaadhin idinkaa laydin qabsanayaa idinkaa laydin weydiinaya ma ku ogteen mise kumaydan oogin dadkani waxay leeyihiin waxaanu dadka wax ugu sheegaynaa laba sababood macdiratan ilaa rabbikum inaannu marka hore xujada ku oogno si aakhiraannu cudurdaar u hello annagu aanu u badbaadno idan adiga badbaadadaadaa ku xidhan inaad dadka diinta gaadhsiiso iyo walacallahum yattaquun iyo la arkee inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho labadaba waa rabnaa bay leeyihin idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto waxaa loo sheegaa dadku dee inay hanuunaan innagu inta badan dadku hanuuni maayo waa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo laakiin sababahaas oo dhan ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya